waxaynu ognahay in abkan Clubhouse uu si xawli ah u qabsaday dhammaanba social mediaha iyo dadkii isticmaalayay. Waa maxay Clubhouse? Run ahaantii Clubhouse wuxuu noqday abka kaliya ee waqti xaadirkan loogu isticmaalka badan yahay, saameyn weyn ku yeeshay dhammaanba adduunka. Waxaa dhammaanba isugu yimaada bulsho kala duwan oo bartaa ku kulma Clubhouse. Assalaamu calaykum daawade, soo dhawow. Waa anigoo ah Nadra Siciid. asxaabta qaaliga ah ee inagaga xiran dhanka Facebook page-ka waxaan idinku hambaliyeynayaa inaynu gaarnay 40,000 oo followers ah. Daawade, si aad warbixin badan uga ogaatid abkan Clubhouse, fadlan adiguna muuqaalkan dhamayso. Hana ka ilaawin in aad muuqaalkan like saarto, sidoo kalena asxaabtaada la wadaagtid adiga oo u share garaynaya. Abkan Clubhouse waxa uu ka duwan yahay ababka kale ee bulshada isticmaasho. ilaa xad ayuu welibana kaga duwan yahay. abkani ma laha qayb xun ama dhinac xun oo loo isticmaalo. waxa badan faa'iidadiisa. abkan looguma talagelin in sawir la soo dhigo oo maba lahaba meel sawir la dhigo, meel video la dhigo, iyo welibana luuq ama message dadku ku wada sheekaysanayaan maba lahaba. waxa aad isweydiinaysaa haddaba sidee ayaan abkan u isticmaali karaa? waxa loo isticmaali karaa keliyata waa cod. in aad cod wax ku gudbisid, in aad noqoto dhageyste amba la dhageyste, in aad noqoto qofkii ka soo qayb galay barnaamijkaas ama mawduucaas. waxa aad sugaysaa keliyata waqtigaaga ilaa inta lagu soo gaadhayo laguna oranayo hadal. abkani waxa uu leeyahay kala dambeyn. qofka soo jeedinaya mawduucan waxa markasta garab taagan amba la jooga dhowr qof oo xidiga haysta. xidigahaasna waxay awood u siinayaan in ay maamulaan qolkan shirka lagu qabanayo amase lagu doodayo. Clubhouse marka aad sidaa u gashid waxa aad arkaysaa qolal fara badan. qolalkaas oo mid kastaba mawduuciisa xagga sare uu ku qoran yahay, oo aad kala dooranaysid mawduucii amase barnaamijkii ku qanciya. kadibna qolkaas aad gelaysid. Clubhouse intii aan isticmaalayay ee aan ogaanayay abkan sida uu u shaqeeyo iyo welibana faa'iidadiisa, run ahaantii waxaan ogaaday in uu dhammaanba ka duwan yahay ababka kale ee dadku ay isticmaalaan. waxaan run ahaantii kaga helay waxa lagu qabtaa waxyaabo badan oo faa'iido leh, sida mawduucyo amba barnaamijyo ah caawi walaalka, doodo fara badan, mawduucyo kolba laga hadlayo oo markaas lagu doodayo. xitaa waxaan arkay in la qabanayo tartan subcis ah akhrinta quraanka kariimka. qofkii isku daya isagoo mawduuc socdo in uu hadlo amase ka soo baxo moodka oo uu qeylqeyliyo, waxa ay awood u leeyihiin dadka maamulaya barnaamijkan in ay 2 jeer u digaan oo marka ay mood saaraan haddii uu mar kale ka soo baxo in uu noqon doono dhageyste xagga hoose loo tuurayo, keliyata aan shirkan amase mawduucan amase doodan ka qaybgelaynin oo uu dhageysanayo. abkan keliyata waxaa isticmaali kara dadka haysta iPhone-ka oo keliyata waqti xaadirkan. haddii aad iPhone haysatid, marka aad soo dejisatid abkan wuxuu kaaga baahanayaa inaad hesho qof hore u isticmaalayay Clubhouse oo aad invite ka hesho. haddii kalena ma isticmaali kartid oo waxaa sugaysaa qof adiga ku soo casuuma. run ahaantii caqabada koowaad ee ay dadku la kulmaan adagana waa tan oo aan ugu biiri karaynin Clubhouse. dad badan ayaa waxa ay waqti ku qaadataa sidii ay u heli lahaayeen qof soo casuuma kuna casuuma Clubhouse. waa caqabada ugu adag marka aad gelaysid Clubhouse. haddii aad ka gudubtid xalkaas, run ahaantii waxaad noqonaysaa qof ku jira kana qayb galay Clubhouse. haddii qof aydan isku magaalo amase isku wadan joogin oo uu ku siiyo invite kuna soo diro nambarkaagana ku soo diro, run ahaantii qofkaas waxa laga goosanayaa lacag. laakiin haddii aad isku wadan joogtaan wax dhibaato ah amase caqabada kuma noqonayso. Clubhouse waxaa isugu yimaada oo welibana ku kulma su'aalana lagu weydiiyaa siyaasiyiin iyo welibana dadkii taageeri jiray siyaasiyiintaas. dhanka saxaafadda amase suxufiyiinta oo aan ka maqnayn oo wariyaasha qaar bartaas ay yimaadaan, kuwaas oo ay la kulmaan dad jecel su'aalo badanna weydiinaya qof kasta iyo welibana isagoo waqtigiisa sugaya sida uu saxafigaas amase siyaasigaas u su'aalo u weydiin lahaa. sida oo kale waxaa ku kulma oo aan marnaba ka maqnayn ganacsato, youtubero, fanaaniin kala duwan, dad caan ah iyo welibana bulshada inteeda kaleba waxay ku kulmaan halkaas iyagoo isugu imanaya qol
ay ku wada shirayaan kana wada doodayaan hadba mawduucii ay jeclaystaan kuna wada hadlaya halkaas isagoo kolba qof codkiisa la dhageysanayo oo aanu qof kale ka daba hadli karin. Clubhouse waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhammaanba caalamka amase adduunka. Isticmaalkiisuna waxa uu noqday marba marka ka dambaysa mid sii badanaysa oo dadka ku soo biiraya oo isticmaalaya abkan ay xadka ka baxayaan. Abkani waxa uu hawada ka saari doonaa dhammaanba ababkii hore u jiray. Waxa sababay in sida xawliga abkan dadku ugu soo biiraan waxa uu ku soo beegamay xilli dadka badankoodu ay guryaha fadhiyaan. Sababtoo ah waxa dhammaanba saameeyay cudurkan COVID-19 oo dadka badankoodu guryaha ayay fadhiyaan. taas ayaa kaliftay in dadkuna ay bartaa ku kulmaan oo ay la kulmaan welibana dadka caanka ah ee ay jecel yihiin. Daawade haddii aad daawanaysay ilaa iyo dhamaadka muuqaalkan waad ku mahadsan tahay. Haddii aad su'aal amase wax fikir ah aad qabtidna xagga commentiga iigu reeb. Waa aniga ah Nadra Siciid. Sidoo oo kale ha ka ilaawin in aad like saarto muuqaalkan adigoo asxaabtaadana u sii share gareynaya lana wadaagaya.